السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا صاحبيال سنغابور maxaad ka taqaanaa dalka yar ee hodanka ah ee lagu magacaabo Singapore? Sidee ayay jasiiradii kaneecada badneed ee ay cayrisay oo ay ka saartay midowgeeda Malaysia ay ku noqotay dal ka mid ah dunida koobaad? yaase dhabaha guusha qaasiyay maxaanse ka baran karnaa? mowduucaas ayaan rabnaa inaan maanta ku lafagurno barnaamijkeena xogdoon. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray inaad like dhahdid si uu u gaaro asxaab fara badan, inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe dhahdid. dabcan taasna dhiirigelin ayay noo tahay. ku soo dhawow muuqaalka oo faahfaahsan. Singapore waa dal yar oo hal magaalo ah. inta badan waxaa loogu wacaa magaca ah City State, kaasoo ah jasiirad yar oo dhacda koonfur bari qaaradda Asia. waa dal baaxad ahaan aad u yar oo ku fadhiya baddan 722 kiiloomitir isku wareeg ah. magaalada Daarusalaam ee Tanzania ayaa baaxad ahaan ka weyn dalkan oo idil. Singapore waa jasiirad kaabiga ku haysa Malaysia. dadka waddankan dega waa Chinese, Malay iyo Hindi. markii ay Britain ka xoroobeen ayay go'aansadeen inay la midoobaan Malaysia oo ay u arkayeen dal ay isku dad yihiin. sanadkii 1963 ayay la midoobeen Malaysia iyaga oo noqday dal qura, balse nasiib darro 2 sano kadib Malaysia baarlamaankeeda ayaa u codeeyay in Singapore ay ka go'do Malaysia ayna ka baxdo, iyaga oo sheegay inay tahay jasiirad yar oo kaneeco badan, dad sabool ahna ay ku nool yihiin, taasoo aan wax faa'iido ah ugu jirin Malaysia. xilligaas Singapore waxay ahayd waqtigeedii ugu xumaa. waxaa cayriyay dadkuweedii ugu dhowaa. Lee Kuan ayaa ahaa ra'iisul wasaaraha dalka, waxa uuna u tafaxaytay sidii uu Singapore uga saari lahaa duruufta adag ugana mid dhigi lahaa wadamada ugu hodansan dunida. Lee muddo badan ayuu arrinkaas ku mashquulsanaa, dalkana kama uusan bixin. waxay taariikhdu xustaa inuu socdaalkiisii ugu horreeyay ee dibadda ah uu sameeyay sanadkii 1973. muddo 8 sano ah dalka kama uusan bixin. Lee Kuan sanadkii 1990 ayuu xilka ka degay isagoo loo aqoonsaday aabihii waddanka. waxa uuna sababay Singapore inay noqoto maanta xarun caalami ah oo hoy u ah waxbarashada, madadaalada, dhaqaalaha, daryeelka caafimaadka, ra'samaalka, hal-abuurka, saadka, wax-soo-saarka, tiknoolajiyadda, dalxiiska, ganacsiga iyo gaadiidka. waddanku waxa uu ku jiraa heerarka caalamiga ah, waxaana loo aqoonsaday inay tahay Singapore dal haysta tiknoolajiyadda ugu sarreysa, taasoo ay mar walba la soo bixi karaan. waa dal ay ku kulmaan hay'adaha iyo shirkadaha ugu waaweyn dunida, ayna ka dhacaan shirarka caalamiga ah. waa dal leh maalgelinta ugu wanaagsan dunida. Singapore waa dal aad u qurux badan, sidoo kale waa dalka ugu aaminsan ama ugu amniga badan dunida. waa dal leh dhaqaalaha ugu furfuran caalamka, dal kaalinta 3aad kaga jira wadamada ugu musuqmaasuqa yar caalamka, dal uu ku yaala suuqa sarifka ee 3aad ee caalamka ugu weyn. dalku wax kheyraad ah ma laha, xitaa ma laha dhul beereed ay wax ku beertaan. qudaarta laga isticmaalo dalkan oo idil waxay ka timaadaa dibadda. sidoo kale ciidda wax lagu dhisto xitaa dibadda ayay ka keensadaan. sidaas oo ay tahay waa dhul cagaar ah, ayna ku yaalaan daaraha ugu dhaadheer uguna qurxoon caalamka. sidoo kale waa xarunta 3aad ee ganacsiga dunida, xarunta 3aad ee dunida shidaalka lagu nadiifiyo, dalka 5aad ee ugu hal-abuurka sarreeya caalamka, sidoo kale leh dekedda 2aad ee ugu mashquulka badan dunida. sidoo kale Singapore waa magaalada ugu nolosha qaalisan caalamka, taasoo muddo badan soo ahayd. dekedaha Singapore waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin horumarka dekedaha caalamka. si la mid ah garoon diyaaradeedka Shanghai ee Singapore waa kan ugu wanaagsan caalamka. diyaaradda Singapore Airlines waa diyaaradda ugu wanaagsan caalamka, iyadoo sanadkii hore loo doortay inay tahay tan caalamka ugu wanaagsan. heerka horumarka aadanaha, Singapore waa dalka 9aad ee caalamka ugu horeeya. waddanku waa dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka. dhaqaalaha dalka waxa uu kor u dhaafayaa 370 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, kaasoo ka mid ah 30 dal ee ugu horeeya dunida. sidoo kale dalku
waa kan saddexaad ee ugu hodansan dunida. dakhli sanadeedka soo gala dadka Singabuuriga ah ama qofka Singabuuriga ah waxaa lagu sheegaa inuu yahay sanadkii $98,000 Mareykanka ah. waa dal aad ugu horumaray hanaanka waxbarashada. jaamacadda Singapore waa tan ugu wanaagsan guud ahaan Asia. sidoo kale daryeelka caafimaadka ayaa aad u wanaagsan marka la joogo dalkan. dadka reer Singapore waxaa lagu tilmaamaa cimrigoodu inuu gaaro celcelis ahaan 80 sano. wadankan waxaa ku nool 5.7 milyan oo qof. 39% dadkaas waa ajaanib dalka degan oo ka shaqaysta. 4 luuqadood oo rasmi ah ayaa looga hadlaa, kuwaas oo kala ah Englishka, Malayga, Mandarinka iyo weliba Taamilka. wadankii la ceyriyay ee kaneecada badnaa iyo sidoo kale dabcan faqriga u saaxiibka ahaa maantay waa mid hormuud u ah dhaqaalaha, tiknoolajiyadda, aqoonta, hal-abuurka dunida iyo dabcan wax walba oo maanta la hiigsado. waxaa heerkaas gaarsiiyey nin loo arko inuu ahaa hogaamiyihii ugu wanaagsanaa qarnigii aan soo dhaafnay ee 20aad. waa Lee Kuan Yew. Singapore waa tusaalaha dal kasta oo xaaladiisu ay liidato ayna ka soo bilaamatay meel hoose. waa tusaalaha dunida ay eegato. haddii aan Soomaali nahay waa tusaale aad u wanaagsan oo ay waajib tahay inaan cashar ka baranno kuna dayanno, laakiin ma nihin kuwa u soo jeeda inay dalkooda dhistaan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad warbixintan ka heshay ama ay ku anfacday inaad la wadaagtid asxaabtaada, muuqaalkan inaad like saartid, sidoo kale inaad nagu soo biirtid oo aad channelka subscribe noo dhahdid. mahadsanid.